السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني بل وحان أركينا dadkii salafka ahaa ee quruntii mufadalada ahayd ee fadliga badnaa jiilkii nabiyullaahi muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi la noolaa iyo kuwii xigay taabiciintii iyo taabicu taabiciintii istikfaarta waxay ka yidhaahdeen abaa muusa alashcari saxaabigaas baa wuxuu yidhi waxaan la kaana lanaa amaanaani laba shay oo na ilaaliya ayaa jiray cadaabkana naga ilaaliya oo yacni labadaa shay mid wuxuu ahaa buuri kownu rasuuli sala alla alay slam fiina inuu rasuulkuna dhex joogo maxaa jira waxbuu noo sheegayey wuu noo degaayey xumaantuu naga reebayey marka iyo istikfaarta midi waa tegay buu rasuulkii waa dhintay istikfaartii baa hartay buu yidhi marka istikfaartu addoommaha ilaahay waxay ka ilaalisaa cadaabka ayay ka ilaalisaa sahal nin la yidhaahdo wuxuu isaguna yidhi istikfaartu waxa weeye awalu listikfaari alistijaaba marka ugu horeysa waa in istijaabo laga helo kadibna allah subxaana watacaala loo noqdo iyo toobad istijaabadu muxulka wuxuu yihi waa acmaalu jawaarix waa xubnahaagu inay camal fiican la yimaadaan inaabada iyo rujuucuna waa qalbigu inuu alla u laabto subxaana watacaala toobaduna waa iqbaal inaa ilaahay subxaana watacaala si toosa aad u qaabishood u aada weeyaan ibnuljawsi raximahullah baa wuxuu yidhi ina ibliisa qaala ahlaktu bani aadama bidunuub ibnu aadamka waxaan ku halaagay buuhi anigu dembi wa ahlakuunii bilistikfaar iyaguna waxay igu halaageen istikfaar ayay igu halaageen anugu waxaan ku halaagay dembi inaan geliyo laakiin wixii aan sameeyey way soo furfurayaan oo istikfaar ba iyaguna la imaanayaan wa biqowli laa ilaaha ila allah iyo kelimada cali bin abi aalib radia allahu canhu wa ardaaba isna wuxuu yidhi alcajabu miman yahliku wa macahu annajaah waxaa la yaab la buu yidhi qof halaagsamaya oo badbaadadii haysta waxaa la qiila wamaa hiya badbaadadu maxay tahay muxuu ku badbaadaa qofku wuxuu yihi alistikfaar istikfaar buu qofku ku badbaadaa cali binu abi aalib radi allahu canhu ardaa mar labaad wuxuu yidhi maa alhama allahu subxaanahu watacaala cabdan alistikfaara wahuwa yuriidu an yucadibahu maba jira sideedaba ilaahay qof uu tusiyo istikfaar oo istikfaar afka saara oo haddana uu rabo inuu cadaabayo suuragal maa maxaa jira qofka markuu rabo alle inuu cadaabo ilaahay istikfaartuu dhaafinayaa oo ma la imaanayo istikfaar axadu saalixiin baa isaguna wuxuu yidhi alcabdu bayna danbin wa nicma addoonku sidiisaba wuxuu u dhexeeyaa nicmi iyo dembi buu udhe marna dembi baad ku jirtaa marna nicmaad ku jirtaa laa yasluxu maa ila alxamdu walistikfaar labadaa shayna waxa uun u suubadaa midna xamdi waa nicmada alxamdulilah ka dambaysi iyo shukri midna istikfaar dembi hadduu kaa dhacana istikfaar caaisha radi allahu canhaba iyadoon waxay tidhi tuubaa liman wajada fii saxiifatihi istikfaaran kahiira geedda janno waxay u sugnaatay qofka xaashidiisa ilan qof walba xaashi buu leeyahay oo laga qorayaay qofka xaashidiisa ka hela istikfaar badan qofkaasaa geedda janno u sugnaatay qataada ayaa isaguna wuxuu yidhi mufasirkii weynaa ee qur-aanka ina alqur'aana yadullukum calaa daa'ikum wa dawaa'ikum qur-aanku wuxuu idin tusinayaa cudurkiina iyo dawadiinaba wuu idin tusinayaa marka cudurkiinu waa adunuub buuri waa dembiga dawadiinuna waa istikfaarta weeyaan ayib xasanulbasri raximahullah baa isaguna wuxuu yidhi war badiya istikfaarta badiya istikfaarta ha la badiyo fii buyuutikum wa calaa mawaa'idikum guryihiina ku badiya meelaha cuntada aad ku cunaysaan ku badiya wa fii turuqikum jidka markaad socotaan ku badiya suuqa ku badiya majaalista iyo goobahaad fadhidaan ku badiya fa inakum laa tadruuna mataa tanzilu lmaqfira garan maysaan xilliga ay dembi dhaafka uu soo degayo oo ilaahay ogolaanaya in dembigaaga la dhaafo garan maysid marka xilli walba istikfaartii la imo bakar binu cabdullaahi almusani ayaa isaguna wuxuu yidhi antum tukhiruuna min adunuubi fastakthiruu min alistikfaar war waxaad badisaan dembiga idinka dhacay waa badan yahay ee istikfaartana badiya asheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah baa wuxuu yidhi hadal cajab badan inahu la yaqifu khaatirii fi lmas'ala wuxuu yidhi khaatir yacni fikirkayga ayaa istaagaya mas'alo iga ishkaal gashay oo igu adkaanaysa yacni masaa-isha dadka culimada ah way ku adkaataa caawo dhan bay ka fikiraan mararka qaarkood hal masalo say u xalin lahaayeen markaasaan fa astakfiru llaha alfa mara kun jeer
ayaan ilaahay istikfaar weydiistaa kadib baa qalbigayga inshiraax intuu helo oo laabtaydu ay waasac noqoto ayay mushkiladiina ii furantaa markaasaa iga reebi maayo inaan astakfirullahda maanta dhan wado haddaan suuqa joogo haddaan masaajidka joogo haddaan madrasada joogo iga mancin maysto inaan istikfaarta aan badiyo haddaba qof walboo umuurtu ku adkaatayow waxaad badisaa istikfaarta siiqada iyo qaabka istikfaarta loola yimaado iyo qaabka laysugu daweeyaba waxay soo socotaa qaybaha dambe insha allah wajazaakum allahu khayr baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi